maamulka dugsiga indhoolayaasha Albasiir ayaa sheegay in dhaqaalihii uu sii jiray gobolka Banaadir uu muddo ka baqan yahay dugsigan oo qarka u saaran yahay in deen iyo dhaqaale la'aan uu u xirmo waxaana dugsigan wax ka bartay in ka badan 50 arday oo kamid ah dadka aragga la waxaana dhaqaale howshiisa lagu socodsiiyay siin jiray maamulada gobolka Banaadir qaarkood oo uu ku tiirsanaa Ustaad Khadiija Cabdi Cumar ayaa ka hadashay qaabka ay casharada u siisay ardayda iyo heerkooda waxbarasho iskuulka Albasiir waxaan u dhigaa maadada sayniska oo ujeedaa hadeertaan waxay qaadanayaan maadada sayniska waxayna ku bartaan qalabkan oo ujeedada oo la yiraahdo midkaan waxaa la yiraahdaa board qalabka kale qalinkan waxaa la yiraahdaa ay isticmaalaan qalinka ay isticmaalaan oo midkaan waxaa la yiraahdaa steel soo that qaabkaas ay wax u qoraan ayna u akhriyaan maadooyinkana waxay ka mid yihiin arday ay kala siman yihiin iskuulaadka kale inta maado ay qaataan galaaskan waxaa la yiraahdaa galaas 7 hadda ay qaadanayaan maadada sayniska marka fahankooda ka waran fahankooda maasha Allah waa boqol wixii loo qoro way akhrin karaan wixii loo sheegana ardayda kale way ka faham badan yihiin si fiican ay u fahmayaan maasha Allah maamulaha dugsiga indhoolayaasha Albasiir Ismaaciil Axmed Cali waxa uu ka hadlay dhaqaale la'aanta dugsiga soo food saartay wuxuuna madaxda dawladda maamulka gobolka Banaadir iyo bulshada qaybaheeda kala duwan weydiisay in si dugsiga uusan u xirmin dhaqaale lagu taageero wuxuuna si hoose iigu sheegay in xitaa raashinkii uu ka go'ay deen badan lagu yeeshay magacayga waa Ismaaciil Axmed Cali ahna maamulaha iskuulka Albasiir hoose dhexe oo iskuulka ardayda aragga la ee dhigtaan waana ku faraxsanahay soo dhawow adigoo mahadsan waxa nooga sheegtaa bal nolosha meeshan iyo dadka degan waxa ay yihiin iyo cida taakulayso iskuulkan hoose dhexe waa iskuul arday arag la ee dhigtaan la furayna 2011 misana soo socday ee taageeri jirtay bulshada caalamka qof walba maaragtay oo asxaabteena kamid ah wax ku taageeri jirtay alxamdulillah 2017 ayay waxay noqotay in gudoomiyihii xilligaas taabit oo noo bilaabay budget oo siiyay gobolka nagala taageero kabacdina maasha Allah iskuulkii oo smooth noqday macallimiin aan qaadanay oo meeraada wax walba maasha Allah ay ku soo dhaqdeen inkastoo badneen laakiin basic ahaan maaragtay oo iskuulkii oo ku socday xilligaas ilaa xilligii gudoomiyihii Allah u naxariisto kabacdi adiga ما شاء الله قبل كأي أنا قلت تاجيري حتى أنا جعلنا هاي إنه راسي وضع ما دام مدة أفر بلاد أنه لسه دينين وحي دقالة وقلنا دي نسيج السكول ك مركوا تاسع جرتو مركب محاد أمرنا سائلنا كجوستي ما أرنتي بصيرة درت هذا مسألة مكلاجر أنا جوحة ابن هاي هوايات مجرتو أنا جا يبتدي السكول ك وان بحنا وان تجني دومية في سكيسة ما نأكل ملك كل مين وأنا صرت جلو ويسي قدومي كحاجات كمالية ده وأنا صرت جلو ويسي لكن وحن أشيء إن قدوميها قبل كإيو قدومي كحاجات كقبل مالية ده إيو لزار قيرة ما دام حلقي لزار قيرة نولا باللابي بنحبين فرماجة وما هاد أدو علينا نولا باللابين إن سما فرق إمارتي سكولك لا تاكليه ما دام وحقوليه سكولك إن قرب لصيه إن قرتين إلهكم مدرنا هذا قبل كبنادرنا أو لو إدمي إنه تغيره كبعد قبل كنا continuous كي أو مسيجري لكن هذا تان مد أفر برادة أي نجا قاضي أنا جانا عندين سوق قاديني دين كي عن سوق قادين أنا هذا تان لسكون هستا ما دام أفر بلاد أين المعلمين تي بشرق هذا شقاله للسمرال أي نقدم كمان كنا دين كي صادر العدين مرة كعد سنة بدوميها قبل كيو وحقيقيسا مالية إبراهيم ديري إن أي سدق دقة نقالها سكولك أصوف الصحان سي سكولك أو عجيز ويستاجو هذيك لو سكولك هلس وجرح الكيسة وراشينكي نجبو أي بكامل كنا أي نقالها كيه. مركب إمس أرضية معلمين مامور آيات ككوبنتين. وحكوا أن هاي أرضية حان وقنطن دور واي لكن هذا ديلي وحقوق بماذا وقار توشون حان أولدنا لكن كنتن أفرتني لح يا ديلي وبعد مالنتي أنا وحبرنا أو صدق إلا ما نويسي حتى سكولك قبل ولا لا هدي أدمام الكيل ويسان أدوكم ما يسبحين كرتان وأنا سبحين أنا أدي واحد بابا برمت يوحي لحلا لكن وحالي رموك تهدي
qof walba waxay baqlaysaa in gobolka banaadir uu garab na siiyo marka gobolka banaadir inay kala cadeeyaan in iskuulka ay wixii ay ka xaqiyeen iyo in kale mugta taas laakiin iskuulkii hadeertaan deen badan lagu leeyahay deenkan wuxuu u galay in gobolka ay lacag soo deen doonaan Muuse Maxamuud Jiisow, Muqdisho.